رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبله ayaa xilka ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii la sheegay inay lumiyeen madaxbannaanida guddinimo iyagoo ku milmay siyaasadda isla markaana ay baalmareen waa siday hadalka u dhigeen xeerka anshaxa doorashada xubnahan xilka laga qaaday ayaa lagu eedeeyay inay ku milmeen siyaasadda isla markaana garab siiyeen dhinacyada iska soo horjeeda qaar ka mid ah iyadoo lagu eedeeyay inay baalmareen xeerkii u yaalay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka afhayeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa saxaafadda u faahfaahinaya xilka qaadistaasi. Bismillahir Rahmanir Rahiim. xilka qaadis iyo magacaabis xubno ka tirsan guddiga khilaafaadka doorashooyinka رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبله markii uu arkay qodobka 99aad iyo boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka markii uu tixgeliyay go'aamadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda loogu xilsaaray hogaaminta iyo habsami u socodsiinta doorashooyinka dalka markii uu xaqiiqsaday in xubno kamid ah guddiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madaxbannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada markii ay u cadaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu qatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalad ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xiriira markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas'uuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xiriira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda markii uu tixgeliyay halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka waxa uu go'aamiyay qodobka koowaad waxa xilalkii iyo xubnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin 1 Xuseen Laki Maxamed Maxamuud 2 Axmed Saciid Samatar 3 Maxamed Faarax Xirsi 4 Nimco Axmed Cabdi 5 Cali Maxamed Faarax Cali Seeko 6 Cabdiraxmaan Maxamed Cali 7 Maxamed Ciise Heybe qodobka labaad waxaa la magacaabay xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin in ay ka mid noqdaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyaga oo bedelaya xubnaha kore ee xilka qaadista lagu sameeyay waxaana ay kala yihiin Ismaaciil Maxamed Axmed 2 Fardowsa Mataan Buule 3 Ayaanle Axmed Cabdulle 4 Bashiir Axmed Yuusuf 5 Xasan Axmed Dhicisow 6 Axmed Barre Maxamed 7 Maxamed Cawil Warsame qodobka saddexaad waxaa lagu wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay dhowraan anshaxa iyo daahfurnaanta doorashooyinka ilaaliyaana madax bannaanida kana fogaadaan ku milmidda siyaasadda xilka qaadistan ayaa ku soo aadaysaa xilli guddoomiyaha guddiga doorashada dadban uu iska fogeeyay eedaasi isla markaana uu sheegay inay shaqadooda u gudanayeen sidii loogu talagalay Yaasiin Faytin telefishinka caalamiga Bulsho TV magaalada Muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland